بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن ونكسنا خيارتي الداودية شقيمة هي قدرت نجمودن مركز صوت نقد داون سنة واحد كسر دواتان ورك التلفزيون كقرنكا. وبدو ورك قدر كورونا وحكم إذا قدوميها محكمة داصرة جمهورية الصوماليلان قريغان يوسف إسماعيل عليها يا وحاه كداري قد عدالة دهورتي سجال قرصورة والله مقعبي قاركم إذا محكمة ده هذلك. حفيز كاس مفلك مدحتوية جمهورية الصوماليلان waxay soo saareen magacaabis mas'uuliyiin u matali doonta gobolada dalka. intaasi waxay ahay qodobadii warka haatan u diyaar garooba dawadayaal isagii oo fidsan. gudoomiyaha maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu guddiga cadaaladda horteeda ku dhaariyay sagaal garsoore oo loo magacaabay qaar ka mid ah maxkamadaha dalka. sagaal garsoore oo ka mid noqon doona garsoorayaasha ka howlgali doona maxkamadaha racfaanka iyo gobolka ee gobolada Awdal, Saaxil iyo Togdheer. iyo Maroodi Jeex ayaa saaka lagu dhaariyay xarunta maxkamadda sare ee magaalada Hargeysa. gudoomiyaha maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Yuusuf Ismaaciil Cali ayaa garsoorayaashaasi ku dhaariyay guddida cadaaladda horteeda. waxay wallahi inaan u noqonayo diinta islaam dalkayga Soomaaliland dadkiisa ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan hayo xilka garsoorayaasha. kadib dhaartaasi ayaa halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda sare mudane Yuusuf Ismaaciil Cali isagoo oo dardaaran u soo jeediyay mas'uuliyiintan ama garsoorayaashan hanan doona xilka garsooranimo, isagoo oo gudoomiyuhu ku dardaaray in cadaaladdu ay tahay halka kaliya ee garsooraha lagu qiimeeyo, isla markaasina ay ku dadaalaan in ay si daacadnimo ah iyo dhexdhexaadnimo ah oo alla ka cabsi leh ay ummadooda ugu garsooraan. gudoomiye Yuusuf Ismaaciil Cali gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland waxa uu intaasi ku daray in ay la kulmi doonaan caqabado badan oo kaga iman doona bulshada ay u garnaqayaan, taasina loogu baahan yahay dulqaad iyo dadaal in ay ku dhaafaan. xeerlaaliyaha guud ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu iftiimiyay in garsoorayaashan loo soo xushay aqoontooda, kartidooda, iyaga oo ka mid noqon doona garsoorayaasha la doonaya in ay wax ka bedel ku sameeyaan garsoorka dalka, isla markaasina ay ka muuqato firfircooni, aqoon iyo karti. mas'uuliyiinta kale ee guddida cadaaladda oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa dhammaantoodba waxa ay si siman ay ugu dardaareen garsoorayaashaasi la dhaariyay in ay waajibaadkaasi u gutaan si wanaagsan oo ku habboon shaqada loo igmaday. xafiiska samafalka ee madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay soo saareen wasaxaafadeed ku qoran yihiin magacaabis mas'uuliyiin cusub oo u matali doonta xafiiskaasi gobolada dalka qaar ka mid ah. xafiiska samafalka madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu soo saaray magacaabidda mas'uuliyiin u matali doona gobolada dalka oo wakiil uga noqda howlaha samafalka ee xafiisku u qaabilsan yahay qaranka. maarayaha xafiiska samafalka madaxtooyadu markay aragtay baahiyaha laga maarmaanka ah ee loo qabo in la helo qof uga wakiil noqda xafiiska samafalka gobolada dalka, markay aragtay baahida ka jirta dhanka xidhiidhka dadka tabaalaysan ee xafiisku wakiilka ka yahay, iyo in ay laga maarmaan tahay in la helo qof metela xafiiska uu joogto ku noqda gobol kasta si dadku u helaan cid ay u soo gudbiyaan kolba halka xaalkoodu uu marayo. waxay go'aansatay in Magool Saalax Xaaji Xasan laga bilaabo taariikhda 25 bishani oo maanta ku beeganaya haato isuduwaha gobolka Sanaag, in Ayaan Cali Cumar laga bilaabo taariikhdan ay ahaato isuduwaha gobolka Awdal, Mustafa Maxamuud Xaaji Cabsiye inuu ahaado isuduwaha gobolka Gabiley, Cabdikariim aadan xaaji deeriye inuu ahaado isuduwaha gobolka Togdheer, xamdi axmed saalax
isuduwaha gobolka sool ee xafiiska samafalka madaxtooyada jamhuuriyadda somaliland wakiilka uga caashe xuseen faarax isuduwaha gobolka saaxil war-saxaafadeedka ka soo baxaya xarunta madaxtooyada jamhuuriyadda somaliland gaar ahaana xafiiska samafalka madaxtooyada ayaa waxaa ku siixnaa maareeyaha xafiiska samafalka madaxtooyada marwo aamina maxamuud diiriye wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka oo weheliyo gudoomiyaha gobolka saaxilna waxa ay dhagax dhigeen xarun caafimaad oo laga hirgelinayo magaalada sheekh abdaal ee xarunta degmada Madheera wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dalka jamhuuriyadda Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka saaxil ayaa maanta wadajir u dhagax dhigay isbitaal cusub oo laga hirgelinayo magaalada sheekh abdaal ee degmada Madheera munaasabadii oo sidoo kale ay ka soo qayb galeen isuduwaha wasaaradda caafimaadka duqa magaalada Madheera iyo dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi ayaa hadalkaasi uu ka soo jeediyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dalka jamhuuriyadda Soomaaliya Marwo Nimco Xuseen Qowdhan ayaa waxa ay ka waratay howlaha lagu dhisayo isbitaalkaasi degmada Madheera iyo ahmiyadda ay u leeyihiin dadka ku dhaqan deegaankaasi iyo sida loogu baahan yahay in laga wada shaqeeyo dadka deegaankaasina ay gacan ka geystaan barnaamijkan wuxuu xambaarsan yahay hooyada umulaysa oo dawadeedu bilaash tahay haddii hooyadu si caadi ah u dhali weydo oo qalliinkeedu bilaash yahay haddii hooyadu meel fog ku foorato maadaama gobolkani gobol kala dursan runtii uu yahay gobol buuraleeya uu yahay duruufo badan runtii uu leeyahay wadada ugu dheera dalka xidhiidhisa ay marto oo accidentku ku badan yahay MCH-ka iyo ambulance-kana aynu ugu talagalay markaa gurmadada loo baahan yahay runtii in ku hawlgalo waayo waxaan garan karnaa duruufaha ka yimaada inta loo soo socdo ama gaari caana sida rakaab sida dhuxul sida lala baadi doonayo in hooyooyinka qaarkood ay dhintaanba weyn gudoomiyaha gobolka saaxil ayaa hadal halkaasi isaguna uu ka soo jeediyay waxa uu sheegay in si weyn uu soo dhaweynayo isbitaalka laga dhisayo degmada Sheekh Abdaal ee degmada Madheera oo uu sheegay inuu yahay isbitaal muhiimad weyn ugu fadhiya dadka deegaankaasi iyo jidka weyn ee laamiga oo inta badan ay ka dhacaan accidentno waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in ay dadka deegaankuna ay dhinacooda ay ilaashadaan isbitaalkaasi runtii maanta waxaa farxad weyn noo ahaa ballanqaadkii aanu ku ballan qaadaynay ama mashruucan oo runtii hakad badani galay oo ahayd inuu xilli hore hirgalo in ilaahay mahadii maanta aynu guushiisii taabannay oo gaadiidkiina hor taagan yahay seeskii inoo qudan yahay dhismayaashii waxaa weeyaan mashruucani runtii waa mashruuc in badan dadaal badan ay dowladdu ka gashay waxa isaguna halkaasi hadal ka soo jeediyay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil oo isaguna ka warmay guud ahaanba caafimaadka gobolka iyo furitaanka isbitaaladaasi iyo kuwo kale oo mashaariic noocaasi oo kale ah iyo ahmiyadda ay u leeyihiin howlaha caafimaad ee gobolka iyo sida ay wax uga tari doonaan guud ahaanba caafimaadka gobolka waxayna halkaasi ka hadlay xubno ka socday hay'adda Health Unlimited oo ina sheegay mashaariicda ay wada hay'adaasi ay doonayso guud ahaanba inay ka hirgeliso gobolka saaxil iyo muhiimadda ay leeyihiin sidoo kalena wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadku waxa ay furaha baabuur ambulance oo ku deeqday hay'adda Health Unlimited ay ku wareejisay gudoomiyaha degmada Madheera baabuurkaasi oo la sheegay in loogu talagalay in lagu adeego dadka deegaankaasi Madheera ilaa iyo goda weyn iyo deegaanada kale ee la xiriira sidoo kalena gudoomiyaha gobolka ayaa gabagabadii mashruucaasi lagu dhagax dhigay isbitaalka kadib waxa uu booqasho ku soo maray markaasina uu soo garamay ceel laga dhisayo dooxa weyn ee magaalada Abdaal oo loogu talagalay dadka deegaankaasi inay ka cabaan waxay noqotay magaalooyinka ugu kaliya xanuunka badan gobolka taasoo ay kalifayso biyaha qalaad ee magaalada Cabto sida darteed ayaa ceelkan inuu wax badan ka taro aan rajaynaynaa waxaana ku deeqday oo kharashkiisa bixisay dikada ayaa bixisay dhinaca kalena hay'adaha islaamiga ee wadaniga ee magacooda la yiraahdo Al-Hayat Israad al-Islaamiya iyo hay'adda النجاح ayaa ilaa iyo kun qoys oo danyar oo ku dhaqan magaalada Berbera u qaybin raashin mucaawima raashinkaasi oo la sheegay in ku deeqday dawladda Kuwait isla markaasina ka kooban timir ayaa la sheegay in la gaarsiinayo ilaa iyo kun qoys
oo dayar oo ku dhaqan magaalada berbera ka socda xafiiska samafalka ee madaxtooyada goobtan aan joogno waa berbera saaka waxaa lagu fulinayaa barnaamij qaybin raashin oo ka yimid kuwait raashinkaana waxaa keentay waana timir gaar ahaan timir waana kun qoys goobjoog baan ahaa وانا hay'adda keentay waxa la yiraahdaa Hay'at Turath al-Islami lajna tahqiiqiya oo Kuwait aad iyo aad bay mahadsan jazaahum Allah khair waxana lagu soo hagaajiyay jamciyadda najaax lil-ta'liim wat-tanmiya iyo muassasada ra'ayat al-muhajirin labaduba waa laba jamciyadood waddanka reer Soomaaliland ilaahay baa mahadlay hawsha si fiican baloo fadhiyay kun qoys ayaa la siiyay insha Allah kulli duruufo maaha markii ugu horeysay ee raashin mucaawinaha la soo gaarsiiyo dadka dayarta ee ku dhaqan magaalada berbera balse baryahan dambe waxaa soo badanaya raashinka mucaawimaha ee loo qaybinayo dadka dayarta taasi oo dad badan ay u arkaan inay habboon tahay in dadka shaqo loo abuuro cabdisalaam xariir TV-ga qaranka berbera orodyahanka weyn ee caanka ee jaamac karaaciin ayaa si ballaaran lagu soo dhaweeyay gegida diyaaradaha ee Cigaal International Airport kadib markii uu dalka dib ugu soo laabtay orodyahanka caanka ah ee reer Somaliland Jaamac Maxamuud Aadan Karaaciin ayaa waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Somaliland mas'uuliyiinta xiriirka ciyaaraha fudud maarayaha madbacadda qaranka gudoomiyaha hay'adda ilaalinta tayada orodyahanka caanka ah ee Cabdi Bile Cabdi orodyahanadii kaalmaha hore iyagu ka galay tartankii ciyaaraha gobolada dalka ee dhawaan isagu ka qabsoomay magaalo madaxda gobolka Togdheer ee Burco iyo qaybo ka mid ah bulshada iyo orodyahano iyo ciyaartoy kale orodyahanka Jaamac Karaaciin oo qolka nasashada ee garoonka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa ugu waramayay warbaahinta ayaa waxa uu xusay sida uu ugu faraxsan yahay imaatinka dalkiisa soo dhaweynaya aad ugu mahadsanyihiin waxaa kamid ah dadkan aad ugu faraxsan ku arka Cabdi Bile Cabdi oo aan tabaro ahaan jiray asxaabna aan ahayn muddo dheer oo runtii iga dhigay kadisoon oo airportka ay ugu hor yimaado ciyaartooygii dalka ciyaaraha orodada ciyaartooygii kubadda kala jirtay iyo madaxdii wasaaradda isboortiga iyo madaxda kale meesha lagu soo dhaweeyey aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaanaynu socdaal gaaban baan kusoo gaaray marka horeysa hooyaday oo xanuunsanaysa ayaan doonayaan soo arko dibadna ilaa 10 casho ayaan doonayaan gobolada in leendheeyo si aan ugu dhigi karno horumarka ciyaaraha dalka aan ku suganahay dalka qatar oo aan tabaro ahay waddanka waxaan ka tegey toddobaadkii oo aan gobolka waxaan wareegay waxaan ku qaranka inaan jiray muddo dheer dowladda Mareykan marka sawirkan aan meeshaan dareen gooniya ayuu dareesanaya dalkayga hooyo maana runtii waxa aad lagu xamdanayaa dalkayga joogo dalkayga nabada oo faraaqo oo bashku masha Allah sidoo kale orodyahanka caanka ah ee Cabdi Bile Cabdi ayaa isna sidaasi si lamida waxa uu u tilmaamay soo dhaweynta orodyahankaasi Jaamac Karaaciin agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha iyo xiriirka ciyaaraha fudud iyo dhalinyaro ciyaaraha xataa ordo aad u wanaagsan iyo qolyo badan oo ruucadaaya oo jaamac ay wada ordi jireen adigu sanado aynay sheegayn oo 40 ba dhaafay marka intaas inaan meesha isugu nimaad iyo aad farxad noogu tahay in wada joogno marka munaasabad ballaaran oo ay shirkadda isgaarsiinta ee Telesom ku soo bandhigaysay adeeg cusub oo ay ugu magac dartay Kaafi Saad Salaam ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa shirkadda isgaarsiinta ee Telesom ayaa soo bandhigtay daafurka adeeg cusub oo la magac baxay Kaafi Saad Salaam
waxaana munaasabadaasi ka qayb galay madaxda shirkadaasi telesom iyo salaam financial service. gudoomiyaha salaam financial service maxamed ibraahim oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sharaxaad dheer iyo faahfaahinba uu ka bixiyey taariikhdii iyo maraaxilkii uu adeegani soo maray iyo adeegyada ay bulshada u qabato salaam financial service, kuwaasi oo ay ka mid yihiin xawilaadda lacagaha oo ay macaamiisheeda ugu xawisho aaba ugu dirto baan kasta oo adduunka oo ay wax u dirayaan. sidoo kalena waxa uu tilmaamay in adeegyadaasi ay ka mid yihiin maalgashiga ay ku sameeyaan bulshada somalilan iyo cid kastoo u baahan marka ay buuxiyaan shuruudaha looga baahan yahay. madaxa macmiilka salaam financial service cabdilqani xariir ayaa isaguna waxa uu ka warbixiyey faa'iidada adeegan cusub ee la magabaxay kaafi saad salaam iyo hawsha uu qabanayo. madaxa saad cabdiraxmaan aadan shire ayaa isaguna waxa uu xusay adeegan cusub ee kaafi iyo saadba in ay dhashay shirkadda telesom, islamarkaasina adeegani uu faa'iido u yahay ganacsatada, isagoona qofka ganacsatadahi meel u socdaalin uu uga baahdo baan, haddana isagoo ganacsigiisii wata halkii uu fadhiyey ayaa uu lacagtiisa ku shubanaya ayaa uu idhi akownka uu ku leeyahay salaam financial service. sidoo kalena shirkadda telesom waxa uu xusay in ay mar walba ka faa'iidaynayso tiknolojiyadda cusub ee caalamku uu ku tallaabsanayo, bulshadeedana ay la jeceshahay horumar. mas-uuliyiin kale ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Maroodi Jeexna waxa uu ka warbixiyey habka ay hanaanka ay u socdaan imtixaanka teeramka dhexe ee ka socda guud ahaanba dugsiyada dalka gaar ahaan gobolka Maroodi Jeex. gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Maroodi Jeex mudane Xuseen Ibraahim Xasan ayaa warbixin ka bixiyey xaaladda guud ee waxbarashada gobolka Maroodi Jeex, isagoo gudoomiyuhu sheegay in waxbarashada gobolku ay marayso meel aad u sareysa, wax badanna ay ka bedeleen habkii shaqo ee waxbarasho, dardar badanna ay geliyeen shaqadii xafiiska waxbarashada ee gobolka Maroodi Jeex, kaasi oo gobolka Maroodi Jeex muhiimad weyn ugu fadhiya. ayaa uu sheegay gudoomiyuhu shaqadiisuna ay tahay kor u qaadista tayada waxbarashada ee gobolka iyo sidii loola xisaabtami lahaa macallimiinta wax ka dhigta iskuullada dalka iyo gaar ahaan gobolka Maroodi Jeex, isagoo gudoomiyuhu sheegay inay sameeyeen kormeero shaqo oo la doonayo in kor lagu qaado howlaha uu qabto xafiiskani si meel sare loo gaarsiiyo aqoonta da'yarta waddanka ee mustaqbalkan u soo baxaysa. gudoomiyaha xafiiska waxbarashada gobolka Maroodi Jeex Xuseen Ibraahim ayaa sheegay in halka ay marayso howlaha imtixaankan teeramka koobaad ee dugsiyada dalku ay galeen maalintii saddexaad si toosana ay uga bilaabmeen waddanka, isagoo si faahfaahsan uga warbixiyay habka qaadista imtixaankan iyo kaalinta ay ardaydu ka qaadanayso. waxau sheegay hawshaasi inay si toosa u socoto gacantana ay ku hayso wasaaraddu, isagoo gudoomiyuhu ardayda ku guda jirta imtixaanka kula dardaarmay inay ilaaliyaan dhowraanna shuruudaha imtixaanka loogu talagalay, dadaal fara badanna ay muujiyaan. xaflad ballaadhan oo lagu daahfurayay buug-sugaaneed cusub oo lagu soo bandhigay xarunta gobolka Togdheer ee Burco, kaasi oo loogu magacdaray Samakaab, ayaa waxaa warkan nooga soo diray wariyahayaga gobolka Togdheer Cabdistaar Sabri. munaasabad ballaadhan oo lagu daahfurayay buug la magac baxay diiwaan suugaameedka Samadoon oo uu qoray qoraad da'yar amaba si abwaan da'yar oo lagu magacaabo Ismaaciil Yuusuf Cabdi Jiheye ayaa habeenkii xalay lagu qabtay hoolka jaamacadda magaalada Burco. munaasabadan lagu daahfurayay diiwaan suugaameedkan Samadoon ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka sare ee jaamacadda magaalada Burco abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi, abwaanka soo bandhigay diiwaan suugaameedkan Samadoon Ismaaciil Yuusuf Cabdi Jiheye iyo waliba dhammaan ardayda jaamacadda magaalada Burco. buuggan amaba diiwaan suugaameedkan oo ku cusbaa dhagaha da'yarta jaamacadda magaalada Burco ayaa waxa ugu horeyn sharaxaad ka bixiyay sababaha ku dhaliyay qiimaha uu ka kooban yahay. qoraaga buuggan Ismaaciil Yuusuf Cabdi Jiheye diiwaanka kan waxa uu ka kooban yahay 522 page 522 page waxaan kaga beeday radiyallahu anhu عثمان بن عفان
ayaa kitaabka qur-aanka rasmul cismaaniya markii uu qorayey waxa uu ka dhigay 522 beyj aniga oo cismaan ku dayanaya oo afartii khulafo ka mid ah malaa'igta ilaahay ka xishoon jirtay ayaa waxaan ka dhigay 522 beyj. abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi oo ka mid ah abwaanada waaweyn ee reer somalilan oo isna madashaasi ka hadlay ayaa waxa uu aad u soo dhoweeyey diiwaan suugaameedkan samadoon isagoo u hambeliyeeyey ku dhaca uu la yimi ismaaciil yuusuf cabdi jiheeye oo ah buugga ninka qoray habeen walba cid baa leh habeen kasta qof walba habeen buu leeyahay caawa waa habeenkii ninkan ismaaciil yuusuf cabdi iyo maasel iyo haddii ay ka dhigo maalinkan maanta buuggiisa buug maaseedka uu qoray ee magaciisa la yidhaahdo samadoon diiwaan suugaameedkan samadoon oo inta badan ka hadlaya dhinaca dhaqanka ayaa waxa uu inta badan uu salka ku hayaa kana xog warramaya magacyo iyo weliba dhaqamo tiro badan oo ay lahaan jirtay soomaalidu gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda magaalada burco islamarkaana ah kusimaha gudoomiyaha jaamacadda burco mudane ismaaciil caraale ayaa isaguna waxa uu halkaasi uga hambeliyey da'yartii iyo ardaydii tirada iyo tayada badnayd ee ka soo qayb galay munaasibadan lagu daafurayay diiwaan suugaameedkan samadoon waxaana uu tilmaamay una mahad celiyey abwaankaasi da'da yar iyo weliba abwaan maxamed ibraahim warsame oo halkaasi uga soo jeediyey dhallinyarada jaamacadda magaalada burco hadallo guubaaba iyo dhiirigelin iskugu jira waxaana uu ballan qaaday gudoomiye ku-xigeenkan jaamacadda magaalada burco ismaaciil caraale in uu halkan soo istaajin doono qof kasta oo xikmad iyo aqoon iyo talaba uu bidayo diiwaan suugaameedkan samadoon ee habeenkii xalay lagu soo bandhigay gudaha jaamacadda magaalada burco ayaa waxa uu noqonayaa buuggii ugu horreeyey noociisa ah ee lagu soo bandhigo gudaha jaamacadda magaalada burco waa sabri tv-ga qaranka somalilan burco gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka sool ayaa shir jaraa'id ay ku qabatay xafiiskeeda waxa ay kaga hadashay baaq nabadeed oo ku wajahan dhinaca nabadda warkan waxaa noo soo diray wariyahayga gobolka sool barkhad cumar gudoomiyaha ururka bahweynta haweenka nabadda ee gobolka sool marwe cafi jaamac cali ayaa baaq nabadeed ka soo saartay shaqaaqada iyo dilalka ka dhacay deegaanada muddooyinkii u dambeeyey waxayna u soo jeedisay madax dhaqmeedka cuqaasha waxgaradka aqoon-yahanka inay istaagaan sidii nabad looga wada shaqayn lahaa waxaanu la hadlaynaa oo aanu baaqa nabadda aanu ku cadaadinaynaa maamulka dadweynaha maalinkan maanta dadka ah madax dhaqameedyada urur haween iyo ragba ayaanu la hadlaynaa waxaanu leenahay qaatuma wata waxaanu leenahay naga daaya colaadda iyo dhibaatada noogu baaqa nabad noola kaalaya nabad waxaanu leenahay lascaanood nabad ha loogu yimaado waxaanu leenahay taalabur nabad ha loogu yimaado maamulkii dhigay dogasha saani ha loogu fadhiisto dabadda markaad ka imanaysaan annaga waxaa noo haysaan waa colaad gawaanida colaad baad noogu soo iibsaan hubka colaad baad noogu soo iibsaan nabad maxaa idiin diiday dadka kale cusbad caafimaad buu ka shaqeeya wuxuu ka shaqeeyaa maalinkan maanta wuxuu ka shaqeeyaa iskuullu ka shaqeeya wuxuu ka shaqeeyaa dadka danweynaha dantiisu ka shaqeeya idina colaadan lagu abuurtaane colaadan waagi baryaba aanu taabu hayna waxaanu idin leenahay walaalayaa adeerayaa ilma adeerayaa hooyadiina dabadda ka imanaya rag iyo dumarba nabad baa macaan nabad baa wanaagsan nabad baa dugsiye gudoomiyaha ururka bahweynta nabadda marwow carfi ayaa mar kasta ka shaqaysa sidii nabad loo xoojin lahaa iyadoo ka qayb gashay shirarkii nabadeynta u dambeeyey ee wilwiliyo ergaabo oo barkhad cumar axmed tv-ga qaranka aqoonsi wadaarsi ku saabsan dhinaca cadaaladda ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada gabiley waraabuurtaasi ku saabsan nimcaan dheeg ibraahim oo nooga soo warrama gobolka gabiley ayaa noo soo diray warkan ka qayb qaadanayeen bulshada kala duwan ee ka hawlgasha gobolka gabiley sida cadaaladda booliska ururada haweenka uqaasha iyo weliba aqoonsi wadaarsigaasi ugu horeyn gabagabadeedu aqoonsi wadaarsigaasi waxa ugu horeyn ka warbixisay agaasimaha guud ee ururka haweenka qaranka somalilan nimca cali xir oo sheegtay in
tababarkani ah mid laga hadlayo doorka ay ku leeyihiin cadaaladda dumar sharci ahaan iyo diin ahaanba waxayna sheegtay islamarkaasina taasi ku dartay in la xoojiyo tababarada noocan oo kale ah rasmaha guud ee ururka haweenka qareenada Nimco Cali Cirsi Jibriil oo arrimahaasi ka hadlaysay waxay tidhi ama siyaabo kale ee sharciga ay uga baahan yihiin caawimo runtii workshopkan aynu wada joognay muddada 2 cisho aynu kaga hadlaynay dumarka iyo cadaaladda ama awoodda ay dumarka u leeyihiin cadaaladda runtii waxaan filayaa in aqoon badan oo nacfa leh ama manaafacaad leh aydinka faa'iidaysateen muddadii 2 cisho ahayd ee aynu halkan joogteen oo aydinka laga eegay dhinacyo badan hadday noqon lahayd dhinaca shareecada diinta islaamka dhinaca xeerarka dhaqanka iyo waliba shuruucda caalamiga ah sidan horeba u sheegay workshopkan ma aha kii ugu horeeyay ee ay ururka qareenada haweenku ka fuliyaan gobolka Gabiley mana noqon doono kii ugu dambeeyay runtii waxa jiray workshopyo hore oo ay ka fuliyeen kuwa dambe oo ay ka fulin doonaana way soo socdaan dhammaantiin waxaan idinkula dardaarmayaa aqoonta ay idinka faa'iideen 2 cisho in ay idinkula noqon doontaan goobaha kala duwan ama bulshada kala duwan ee idin matalaysaan si ay taasi wax uga bedesho fikirkii hore ama perceptionkii ay dadku ka aaminsanaayeen dumarkii gabagabadiina waxay sidoo kale waxay kula dardaartay ka qaybgalayaasha inay ka faa'iideeyaan sharcigan isla markaasina dardargeliyaan sidii looga qayb qaadan lahaa doorka ay dumarku ku leeyihiin cadaaladda qareen sidoo kale iyadna waxaa halkaasi ka hadashay qareen Hibaad Ibraahim Axmed oo ka mid ah qareenada ka howlgala maxkamadda gobolka Gabiley oo sheegtay inay ka qareen ahaan dadka dumarka aana u doodaan si lacag la'aana balse waxay sheegtay in doorka ay dumarku ku leeyihiin cadaaladdu tahay mid la xoojiyo iyadoo aad ugu mahadnaqay kasoo qaybgalayaasha ka qayb qaadanayay arrimahani ka qayb qaadanayay tababarkani waana markii ugu horeysay tababar noocan oo kale ah lagu qabto magaalada Gabiley Nimcaan Dheeg TV-ga qaranka Gabiley intaas ayaan kusoo gabagabeynaa warka telefishinka qaranka warkan warka xiga ay tahay ku kulmayno aniga iyo bahda galay qayb qaadatay waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.